munaasabaddan lagu furay shirweynaha caalamiga ee maalgashiga Soomaaliland ayaa madashaasi waxaa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha ganacsiga, macdanta iyo tamarta xubno ka socday hay'adaha deeq-bixiyaasha ee qorshahoodu yahay maalgelinta ganacsiyada qaaradda Afrika. madax ka socotay shirkadaha waaweyn iyo kuwa dhexe ee ku fogan ganacsiga kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa sidoo kale munaasabadaasi goobjoog ka ahaa marti sharaf lagu caasumay munaasabadaasi lagu furayay shirweynaha maalgashiga Soomaaliland. Cabdikariin Jirde Goolle, ku-xigeenka hay'adda Shuraako, Cumar Shacayb Maxamed, wasiirka wasaaradda ganacsiga maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland, mudane Xuseen Cabdi Ducaale, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo madashaasi ka hadlay lagu furayay shirweynaha caalamiga ee maalgashiga Soomaaliland ayaa waxa ay ka warrameen ujeedada looga goleeyahay shirweynahan. shirkan waxa loo qabtay waxa la Somaliland Investment Forum. ujeedaduna waxa weeyaan in la hirgeliyo oo la dhiirigeliyo investmentka Soomaaliland. waxa weeyaan Somaliland open for business, for investment. So waxaan isugu yeernay international donors, international investors, local businesses and iyo Somaliland government. shirkan waxaa qabanqaabiyay wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee Somaliland, wasaaradda tamarta iyo Chamber of Commerce-ka rugta ganacsiga Somaliland. waxaa actually qayb weyn ka qaatay oo sponsorship-ka amba maalgelinta shirkan World Bank Group iyo hay'adda Gale USAID funded project. waxaa ka mid ah gold sponsorska Dahabshiil Group, Sunpower iyo Pure Company iyo company kale oo yaryar. ujeedada shirkan waxa weeye sidii loo heli lahaa isdhexgalka dadka ganacsadaha ee investorska dawladda inooga imanaya iyo dadkeena ganacsadaha oo ay wada sheekaysan lahaayeen, businesska isu wadaarsan lahaayeen. waxa weeye faa'iidada ugu weyn laga helayo waxa weeye wax la yiraahdo networking, in la xog laga helo dadka hadlaya ee halkan lagu soo cusubay iyo dadka ka soo shaqeeya ka soo qayb galaya. waa fursad qaali ah oo runtii u baahan tihiin inaad ka faa'iidaysato saddexda casho oo dhegaysataan khudbado badan oo muhiim ah oo quseyn kara aaga aad ku jirto ganacsiga kaga jirto ayaa halkan ka dhici doona. geesta kalena mas'uul ku hadlayay hay'adaha ka qayb galay kulankaasi ayaa waxa uu ka warramay kaalinta uu ganacsigu uu kaga jiro horumarinta dalka. Aamine Xirsi Mooge oo ah haweeney ganacsata oo caan ah isla markaasina ka soo jeeda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhankeeda waxa ay ka warantay caqabadaha kala duwan ee soo wajaha ganacsiga iyo sidoo kale sifaha iyo sababaha lagaga gudbi karo caqabadahaasi. waxaa halkaasi lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo u baahan in la maalgeliyo, halka sidoo kalena madashaasi lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo markaasi iyagu ku hana qaaday dhinaca ganacsiga. magacaygu waa Maxamed Cabdi Cilmi, waxaan ka socdaa company naaxinta xoolaha iyo ka ganacsiga xoolaha ah oo la yiraahdo Hoodaale Livestock Trading Company. waxa aanu ku hawlanahay inaanu profile garayno oo xoolaha ka iibino warshada hilibka oo ay Maleeshiyaan ku maalgeliyeen Burco, warshad weyn oo dhoofinaysa hilibka. marka inaan xoolihii naaxino, xanaanayno, isla mar ahaantaa ka iibino oo aan ku wareejino shirkadda Tayyib la yiraahdo maalgelisay dalka. marka mashruucu ka weeye kaasaan ku hawlanahay. marka opportunity-gan iyo fursadda tan maalgashiyaashu joogaan iyo ganacsatadu kala jaadka ah ayaanu doonaynaa inaanu ka qayb galno oo ku soo bandhigno tayada.